ثم بالله ثم تالله أقسم بالله العلي العظيم يوكل سنة كتابك إلهي وأركتها في الله حتى كفتان مقالاه وما يسمى كوسو إنه والله ثم بالله ثم تالله يوكل سنة وترترايا هرانا كترترايا مصورس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي أنا قلت سعودة جنرال كان شيء مشرف واحد ليه السود دوادة قلب فرن قعم فرن يوجد فرن بكسود ولا لها قلبي هدي أي تايم مركي كوباد الصوب وقت الجنرال كان سبسكرايب ده جنب لك فروسي هذا نقطة داودة كوباد داودة برنامج دينا ولا لها قلبي ما أنت تولي موضوع إنه سوق هذا إنه أنت وكدوين هاي موضوع يدي هراء وأن سوق هذا جرني أكلته رنتي أيضا أرمحني أي صوبتين وكصوبتين برها بالشدة ayaa mawduucan caawa ama maanta aan wadano wuxuu ka duwan yahay mawduucyadii hore ama barnaamijyadii ama mashaakilkii ama dhibaatooyinkii ama fadeexadihii dhici jiray hore ayay ka duwan yahay fadeexadaani runtii waa qof islaam isku sheegaya dabcan qofka hadduu kitaab ilaahay aaminsan yahay oo ku dhaaranayo muslim ayaan dhihi karnaa because qof islaama oo kaliya unbaa aaminsanaan kara kitaabkaas kuna dhaaran kara qof aaminsan unbaa ku dhaaran karaa okay qof islaam isku sheegaya luuqadii Soomaaliyeed ku hadlaaya Soomaali kula ah mushaf ama kitaab quraan intuu soo qaatay midigtiisa saa u gelinaya dushana ka saaraya kuna dhaaranaya saddexda magac oo Ilaahay ninkaas muxuu u dhaaranayaa wad isleedahay ma wuxuu u dhaaranayaa dalkii Soomaaliya inuu xukumo maya ma wuxuu u dhaaranayaa xaaskiisa si fiican inuu dhaqdo maya ma wuxuu u dhaaranayaa in uu cadaalad ka shaqeeyo maya talow muxuu u dhaaranayaa ayaad isleedahay ninkan dhan ee weyn ee kitaabka intuu soo qaatay gacanta geliyay haddana saddexda magac oo Ilaahay ku maraaya wallahi thumma billahi thumma tallahi bulay wuxuu leeyahay thumma wallahi thumma billahi thumma tallahi ayuu leeyahay uu dhaaranayaa saddexda magac oo Ilaahay saddexda ismo Ilaahay uu ku dhaaranayaa intuu musxafkii gacantiisa saa u saaro bal ninkaasi wuxuu u dhaaranayo ma idin sheegi karaa ma ii sheegi kartiin mise يعني فهمي كرتين سببها ودارنايو سبحان الله ملك القدوس runtii in aragteen waa laga yaabaa fiidiyowga kan ninkan uu ku dhaaranayo sababaha u dhaaranayana in uu aad daawateen ama aad ogtiin waa laga yaabaa balse sababaha haddaan idin sheego qaybtiina aanan ka warqabin oo arkin amaba aan maqlin ninka duqoobay wuxuu musxafka Ilaahay ugu dhaaranayaa oo gacantiisa intuu u saaray saddexda magac oo Ilaahay ugu marayaa waa gabar muslimada gabar walaashiisa kala ah maxaa la yiraahdaa hooyadiisa kala ah gabadhiisa kala noqon karta amaba ahba waxa laga yaabaa inuu gabraba leeyahay uu dhalay isagu ninkaasi gabar walaashiisa muslimada ayuu wuxuu leeyahay walaal waxaan ka codsanayaa in aad ii soo dirtid sawir qaawan oo aad qaawan tahay oo sidii hooyada kugu dhashay ah subxaanallahi malakul quduus gabadhii wuxuu ku dhaaranayaa kitaabkii dabcan de anagu isaga un baan aragnay fiidiyowgiisa oo dabcan iyadu u diray fiidiyowga balse iyadii baan maleynayaa in ay dadka la soo wadaagtay ama dad la soo wadaagtay oo baraha bulshada saa ku keentay dabcan okay gabadhi mar haddii sawir qaawan buu ka codsaday dabcan saan fiidiyowgan hadda anigu aan ka dhadhansanayo markii uu ay sawir qaawan uu ka codsadayna waxay ku tiri anigu see kugu aaminaya waxyaabo caynkaas oo kale ah kitaabka Ilaahay ma ku qanacdaa haa kitaabkan kugu dhaaranayaa in aanan sawirkaagaas meel u diraynin meel la geynaynin markaan dhaayahayga saaron arko waan tirtirayaa oo waan dhilid garanayaa ayuu gabadhi ku leeyahay subxaanallahi malakul quduus wuxuu ku dhaaranayo oo musxafka ku maraayay waxa waaye sawir qaawan baa ii soo dir si aan u arko sawirkaaga qaawan kadibna waa iska tuurayaa oo dhilid garanayaa ama waa masaxaya waa tirtirayaa wuxuu leeyahay waa tirtirayaa sawirkan ii soo dir hal mar waa arrin aad iyo aad looga naxo murugo ah laga xishoodo faaxisho ah in dhalinyartii Soomaaliyeed qiimaha iyo sharafta lahaan jirtay raggii Soomaaliyeed lagu yaqaanay in ay gabdhaha ixtiraamaan lagu yaqaanay in ay gabdhaha maxal yiraahdaaye sharaftooda ilaaliyaan waxaan maqli jiray dabkii gabari shido ayaa beeladani ku rogman jiray waxaad arkaysaa wiilal ama dhalinyaro waxaad arkaysaa ku ciyaaraya gabdhaha sharaftoodii waxaad arkaysaa mustaqbalkoodii ku ciyaaraya dabcan مثلا هذا لبدان qof xiriir baaba ka dhaxeeyba video inta adu la ishukaasada la isla sheekaystay ayaba sawir qaawani ka baxay gabadhii sawirkii qaawana markuu ka baxay oo kaleeto dabcan barahi bulshada ayuu sida ku keenaya oo isma dhahaya gabadhan waa gabar walaashay oo kaleeto ah bal sawir qaawan sawirkan qaawan baraha bulshada ha ka keenin ama videogan faaxishada ah baraha bulshada ha ka keenin oo kaleeto isba u oranayo okay wiilkan dhalinyarada ah
arrintan inaga hadda مثلا social media ka badatay gabdhaha la fadeexaynayo gabdhaha qaqaawan la keenayo maxaa la yiraahdaa gabdhaha sharaftooda lagu ciyaarayo oo dhalinyaradu ku ciyaarso waxay u badatay dabcan aniga saan aaminsanahay nin baa soo ordaya gabar ayuu xiriir la sameynaya gabadha sababta xiriir ula sameynayo rabitaan uu rabo gabadhaas ama jacayl uu qabo ma ahan gabadha xiriirka wuxuu la sameynayo kaliya inuu sharafteeda ku ciyaaro sawir qaawan inuu ka helo video qaawan inuu ka helo kadibna social media keeno oo gabadhii sharafteedii uu sidaa kaga ciyaaro oo ku baabi'iyo okay kan markuu soo ordo uu sidaa gabar muslimada oo walaashiis camal ku sameeyo uu gabadhii xiriir ula sameeyay si uu u fadeexeeyo sharafteedii ugu dheelo dabcan isaga gabadhaas muslimada ah ee walaashiis camal ah dhibaatadii u geystay fadeexadii uu u geystay waxa laga jarayaa isaga walaashii waxaana ka jarayaa mid kale oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed sababta loogu sameeynayo wiilkan walaashiisa fiidiyoyada foosha xun looga duubayo social media loo keenayo fahmi karaysaa sababtu waxa waaye waxa laga jarayaa dhibaatadii uu u geystay gabadhii Soomaaliyeed ama gabdhihii Soomaaliyeed muslimiinta ahaa walaaladiis camal ahaa oo uu fiidiyoyada foosha xun inuu ka duubo ajligood xiriirka ula sameeyay ee uu ka duubay fiidiyoyaasha kadibna uu soo dhigay social media wiil kasta oo Soomaaliyeed oo gabar walaashiis camal fiidiyo ka duuba amba sawir qaawan ka qaada kadibna soo fadeexeeya waxa laga jaraa walaashiis asaga la dhalatay waxa kale oo laga jaraa gabadho asagu dhalay ama dhali doono waxa laga jarayaa familigiisa gabdhaha ka soo jeeda ama habriyaashiisa ahaataano ama eedooyinkiisa ahaataan adiga dumarka familkiisa qoyskiisa ama tuu qaba ahaato ama tila dhalatay ahaato kuwaas laga jarayaa li'anna maxaa yeelay fadeexa kasto gabar muslimada u geysatid gurigaaga ku soo hoos noqonaysaa bini aadankuna mas dhibaato kuma dhacdo ilaa iyagu gacmahooda inay ku doontaan ama ku sameystaan mooyaane marka waxay u soo badanaysaa faaxishada tan dunida ugu soo badanaysaa niman ka duubaya gabdho walaaladood camal fiidiyoo qaawan niman maxaa la dhahay sawir qaawan ka qaadaya waxaas oo dhan waxa social media ugu soo badanaya oo dunida maanta ugu soo badanaysa waxa waaye waxa laga jarayaa qof kasta dhibaatadii uu geystay مثلا هذا ويل كولالكايا هدي وحاس قبر كسميه أديكنا ولا جاجريا وأديك يا لا جاجريا قبل ده ولا كوحك كسميه لكن سي هدينه هيسن لهين دولة ما تتولى وحاس كهذلا أو كديدية هدينه هيسن لهين وإسكودان وجيده رونانتي أنا وحن آمن سنة هي وحكن إني يران لهايين إن وحن لصوت برجر كر لها بس دنيا أيضا أول بسي جبابسي هيدا وسي خربان هيد ayaa maxaa la dhahayay waxa ku siibatay faaxishadii inagana dawlad la'aan ayaa bayna hayso oo dhibaatada waxa inoogu wacan dawlad la'aanta aan soddonka sano nahay dumarka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meel kasta oo dunida kamid ah sida dalka gudihiisii sida maxaa la dhahayay qurbana casta sida maxaa la dhahayay qurbooyinka caadiga sida Europa iyo America run ahaantii waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ayuu umba u gargaari kara cid la hoos fariisto oo gacmaha la hoorsadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa u haboon Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha xifdiyo dumarkeena Soomaaliyeed wiilkan dhalinyarada ah arintan foosha ku kacay kuna dhaaranay kitaabka Ilaahay isaga oo u mindiya lisanaya gabar walaashiis camala oo cafiifad ah in uu fadeexadeeda banaanka keeno Ilaahay baa asturay gabadha oo mariyihii u xiray adigana waxa rabtaa inaad maryaha ka dhigtid oo aad fadeexaysid oo aad banaanka keentid oo dadka oo dhan aad tustid waxa ka faa'iideysid ma ii sheegi kartaa gabadha tan aad rabtid in aad sawir qaawan ka heshid kaba soo qaadba waa fadeexaynaysaa iyo social media keenaysaa iyo afaaraas dhan ka soo tag inaad gabadhan jirkeeda qaawan aad aragtid oo lagu soo diro waxa aad ka faa'iideysid ma ii sheegi kartaa hadaad gabadha jeclaatay aad ka heshay ehel bay leedahay tol bay leedahay u tag ka doono guurso xaas ka dhigo waa dad ka hesho jeclaato jacayl aad gabadhi u raadsanaysid subhana al-malik al-quddus subhana allahi malik al-quddus la hawla wala quwwata illa billah ilaahu soo hanuuni rabbi rahmaan oo dhalinyarada Soomaaliyeed adiga ayaa soo hadin karaaye walaalahiga qaaliga ah waxaan idin ka codsanayaa channelkan in aad gaarsiisan meel sare subscribe kana waxay noo tahay dhiirgelin dhacdhacna ugu sii hanagala bakhaylin waad fiirsanaysaa laakiin ma taqaanid meesha guduudan inaad saa tiraahid oo subscribe ay ku qoran tahay kadibna ay isku bedesho dameeri ama garijo ay isku bedesho oo guduudka baaba oo sida ayaa subscribe lahaa dad badan laga yaabaa inay subscribe ka aqoonin
waxay kaga tagayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.